madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garaan ayaa waxa uu xarunta madaxtooyada ku qaabilay guddiga ku-meel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ee dhawaan uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Guddiga ayaa kulanka madaxweynaha ay la qaateen waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Koonfur Galbeed. guddiga ayaa kulanka madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka kadib waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka. waxay u bandhigeen ujeedada socdaalkooda Baydhabo oo ahaa qaabka doorashada soo socota ee wadanka ay u dhici karto ma 4.5 mise qof iyo codkiis way suurageli kartaa. waxay ahaayeen waxyaabaha kulanka guddiga doorashada ee baarlamaanka xagiisa ka socday ee Koonfur Galbeed bulshada iyo madaxda ay la wadaagayeen. kadib waxay la kulmeen bulshada rayidka ee Koonfur Galbeed oo qaybo kala duwan isugu jiray. waxaa la weydiiyay aragtidooda iyo qaabka doorashada soo socota ay u dhici karto. qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka guddiga ee bulshada rayidka ka socday ayaa Universal TV aragtidooda qaabka ay aaminsan yihiin inay doorashada soo socota ee wadanka ay u dhacdo wax ka weydiinay. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waxaa Usfar Cali, waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo oo isla marnimadaasna ka mid ah ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed. waxaan u sheegnay annagoo ah ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed mise magacooda aan ku hadlayno inaanan dhici karin doorasho one man one vote. isla marnimadaasna annaka aan rabno Koonfur Galbeed ahaan in maxaa la dhahay doorashada ay u dhacdo sidii awalba ay u dhacaysay oo ah 4.5 in lagu qaybiyo. sababtoo ah sababo amni darteed iyo isqabsi siyaasadeed dartiisa waxaa jiro lama gaari karo fikirka la rabo oo ah one man one vote. sababtoo degmo kale u gudubta ma lahan. dadkii hore 50+1kii waxaa lagu sameynayaa jirdil mise dhibaato mise dil loo geysanayaa iyo canaan badan iyo hanjabaado badan. sidaas darteed waxaan rabnaa Koonfur Galbeed ahaan inay u dhacdo doorashada 4.5 tirada rabta ha noqoto. tirada hal la kordhiyo mise hal la yareeyo. waxaan kale u sheegnay inaan maxaa la dhahayay awoodda badan la siin odayaasha dhaqanka ee isla marmadaasi ee saxiixayeen xildhibaanka marka ugu dambeeyay codkiisa. isin xildhibaano itiin baarlamaanka itiin may la raayso dad oo xasaanid haysto itiin dad oo hanagada fado itiin 2020 si isin naftirkin guddiga ka nagateen su'aal goosata iyo naftirsho warsanay marka kulay sideenay ku jawaab fadileen ku jawaabi fikirkaana intaas ku dhiibni sida ana gaboona may la raayso un reer Koonfur Galbeed hadii aan saasanay lagu man iyadeeda ma santiwan marka saas darteed may rajaynay inay oo ama aragtidan wan qabno wali waa inay qaabkii yar wali yar ku bedelo laakiin one man one vote wala raw iyo hadda macquul ahayn ama aan dhigi karo. guddigan waa meeshii ugu horeysay ee xarumaha maamul goboleedyada ay booqasho ku soo gaaraan isla markaana ay la kulmaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo madaxda dowlad goboleedyada. bulshada Koonfur Galbeed iyo madaxda dhammaan dadkii la kulmay aragtidooda waxay u badnayd in Koonfur Galbeed danta ay ugu jirto ay tahay in 4.5 qaabkii doorashooyinkii hore wax lagu soo xulo. Muxuddin Xusni, Universal TV, Baydhabo.